baaritaan aan sameynay ayaa muujinaya inuu kordhay xiriirka qarsoodiga ah ee ka dhaxeeya madaxweynaha Puntland ganacsade Siciid Deni, dowladda Imaaraadka Carabta iyo Al-Shabaab oo dhinac ah. ganacsade Siciid Cabdullaahi Deni oo sanadkii 1966 ku dhashay magaalada Muqdisho ayaa siyaasadda Soomaaliya ku soo biiray sanadkii 2002. xiriirka ganacsade Siciid Cabdullaahi Deni iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilowday sanadkii 2004 xilliga oo siyaasadda Soomaaliya uu ku jiray muddo 2 sano ah. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sanadkii 2006 u istaagay in dowladda Imaaraadka uu kala shaqeeyo sida Soomaaliya lagu soo gelin lahaa badeecada dhacday, hubka sharci darrada ah iyo kiimikada laga sameeyo walxaha qarxa kuwa oo loo kala geyn jiray gobolada dalka. 12 bishii August sanadkii 2008 Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kulankii ugu horeeyay magaalada Nairobi kula qaatay diblomaasiyiin ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka oo uu hogaaminayay diblomaasi Ahmed Albana oo hadda ah safiirka Imaaraadka ee dalka Hindiya. kulan 24 bishii June sanadkii 2012 dalka Imaaraadka gaar ahaan magaalada Shaariqa ku dhexmaray Siciid Cabdullaahi Deni, dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed iyo safiirka Imaaraadka ee Suudaan Hamad Mohamed Hamid Al-Junnibi ayaa waxaa Siciid Cabdullaahi Deni lagu amray inuu kala dab qaado Al-Shabaab iyo Imaaraadka si dulaal uu uga noqdo hubka uu Imaaraadka gaarsiinayo kooxda argagixisada Al-Shabaab. 17 bishii December sanadkii 2015 Siciid Cabdullaahi Deni oo gudanaya howlihiisa ayaa Al-Shabaab gaarsiiyay 2 doon oo waday hub, raashin iyo agab ciidan oo ka imaaday Imaaraadka. 11 bishii May sanadkii 2016 Deni ayaa wafdi ka socday dalka Imaaraadka gudaha garoonka Garowe uga gudoomay dhaqaale dhan $1 milyan taasoo lagu maareynayay ganacsigiisa iyo Al-Shabaab, waxaana jira shidaal uu xilligaasi u raray kooxda Al-Shabaab si ay ugu maareeyaan baahiyahooda. 23 bishii April sanadkii 2017 Siciid Cabdullaahi Deni oo kaashanaya ganacsato ku dhow ayaa Al-Shabaab gaarsiiyay 1 doon oo waday hub ka koobnaa noocyada BM-ka, AK-47, BKM iyo risaas. waxaana xusid mudan in adeegaasi uu Al-Shabaab ugu dhiibay ganacsado lagu magacaabo Cabdi Doof, waxa uuna ka mid yahay ganacsatada sifaha sharci darrada ah hubka uga iibsada kooxda Al-Shabaab. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la sheegay inuu lahaa hubkii magaalada Boosaaso lagu qabtay 25 bishii September sanadkii 2017 xilligaas oo uu ahaa musharax madaxweyne. sidoo kale uu soo noqday wasiirkii qorsheynta ee dowladda Xasan Sheekh iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah. 9 bishii March sanadkii 2019 ciidamada Puntland ayaa gacanta ku dhigay doonisiday hub iyo shidaal sharci darro ah oo ka imaaday dalka Yemen, balse waxaa sii deynta doontaasi fududeeyay Siciid Cabdullaahi Deni oo wada shaqayn xooggan la leh Imaaraadka oo naas nuujinaysa Al-Shabaab. Deni oo hadda ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland isla markaana leh awood uu ugu abaalgudi karo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa 18 bishii February sanadkan 2020 dowladda Imaaraadka u ballaariyay xero sirdoon oo ay ku dhex lahayd gudaha garoonka magaalada Boosaaso, waxaana awood u siiyay inay sameystaan ciidamo gaar ah iyo xirooyin hor leh. 14 bishii May sanadkii 2020 madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gaashaanle sare Cismaan Cumar Maxamed u magacaabay taliyaha ciidanka madaxtooyada oo markii dambe ay isku fahmi waayeen shaqooyinka basaasnimo ee uu hayay Deni. 2 bishii June sanadkan 2020 waxaa khilaaf uu ka dhex urtay Siciid Deni iyo taliyaha ciidamada madaxtooyada gaashaanle sare Cismaan kadib markii lagu qabsaday xubno ka tirsan sirdoonka Imaaraadka oo uu u diiday inay galaan madaxtooyada xilliga oo aan loo qaban balan ay kula kulmaan madaxweyne Deni. sidoo kale gaashaanle sare Cismaan waxa uu la socday dhammaan natiijooyinka ka soo baxay kulamada Siciid Deni iyo Imaaraadka,
waxa uuna goobjoog ka ahaa in ka badan 13 kulan iyo heshiisyo qarsoodi ah oo dhex maray Dani iyo Imaaraadka. 8 bishii July sanadkan 2020 sirdoonka Imaaraadka ee ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa madaxweyne Dani ka dalbaday in la qaarijiyo taliyihii madaxtooyada Puntland gaashaanle sare Cismaan Cumar Maxamed. 9 bishii August sanadkan 2020 iyadoo la fulinayo amarka qaarijinta gaashaanle sare Cismaan Cumar Maxamed ayaa waxaa loo diray howlgal qaas ahaa oo ka dhacay warshada kabista ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo inta uu socday howlgalka la toogtay taliyihii hore ee madaxtooyada Puntland gaashaanle sare Cismaan Cumar Maxamed oo sababsaday macluumaad badan oo uu ka hayay xiriirka Imaaraadka iyo Saciid Cabdullaahi Dani. howlgalka taliyaha lagu diray gabi ahaanba ma qusaynin shaqadiisa iyo midda ciidanimada ee uu ahaa. su'aal haddaba maxaa sababay in Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhiiran waayo fulinta weeraro joogto ah oo lagu qaado saldhigyada al-shabaabka ka howlgala Puntland? gaabiska Saciid Dani soo caddeyn uma aha wada shaqaynta kala dhaxaysa al-shabaab.